kulan ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa lagu gorfeynayay siyaasadaha qaran iyo xeerar ay hore u dejisay wasaaraddu. Kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland, danjirayaal, xildhibaano iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Saciid Cabdikariin Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan iyo waxyaabaha lagu faaqidi doono 2 maalmood ee uu soconayo. Documentska la bixiyo waxa kamid ah document national oo Somaliland Foreign Policy oo la bixiyo horana first draft waxa kaloo kamid ah documentska la draft gareeyay ee first draft imika oo initial point ki maraya oo la doonayo in consultative meeting kan oo beritola khaasatan in ay wax ku soo biiraan dadka ku darsadaan waxa weeyaan Foreign Service Act sidoo kale waxa wasaaraddu ay draft gareysay communication policy ayadu leedahay oo ay wasaaradda dhexdeeda iyo missionskeenaba qusay wadugta saddexaad maanta shirkan doonayay ku dhameystiro ama contribution ku helo document afraad oo weeyaan Somaliland mission guide oo tilmaamaya missionskeen siyaadaha ay direct u noqonaya oo sharaf weyn ayay noo tahay wasaaradda iyo hoggaankeeda iyo guud ahaan tahay qaranka u tahay in aynu shaqadii wasaaradda socodsiinayno oo aynu qarankeena ku soo biirino. Marwo Edna Aadan Ismaaciil oo kamid ahayd marti sharafta halkaas ka hadashay ayaa ka warantay kaalinta ay wasaaradda arrimaha dibadda ugu jirto qaranka iyo caqabadaha hortaagan aqoonsiga caalamiga ah ee ay Somaliland ka heli lahayd beesha caalamka. waxaanu u baahanahay inaynu labada boqol ee dal ee adduunka ka jira inaynu gelino dardar dheeraada sanadkan cusub ee nagu soo foodle waxaan ilaahay ka baryayaa inuu noqdo sanadka aynu dardar dheeraada aynu gelino sidii aynu wixii inaga maqnaa xaqii inaga maqnaa aqoonsigii inaga maqnaa iyo wixii aynu xaq u lahayn oo dhan inaynu ku soo dhaxsano oo xaqiijinaya inay Somaliland tahay dal jira. wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Sacad Cali Shire, xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, wasiir ku-xigeenka ganacsiga Muuse Salaf iyo Aadan Muuse Jibriil oo danjire ka soo noqday qaar kamid ah wadamada dibadda ayaa dhamaantood mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ku bogaadiyay dejinta xeerar iyo siyaasado wax ka tari doona doorka shaqo ee wasaaradda arrimaha dibadda. waxaanu u baahan inaynu yeelano qorshe iyo istiraatiijiyad iyo halbeegyo ayaynu u baahannahay sanad walba aan ku xisaabtami karno halkan ka joogno. labada su'aalood ee ugu badnaa la weydiin jiray waxay ahaayeen maxaa laydin ictiraafi waayay iyo yaad u malaynaysa inay ictiraafayaan yaa idinku dhow. labada su'aalood labada su'aalood si looga jawaabo waa inaynu qorshe ka yeelano. runtii dad dhaxalgaleen ah oo tacab ku leh tan aynu maanta u joogno ayaa halkan tale ka soo jeediyay iminkana u fadhiya 2 casho ee soo socda inay ku darsadaan. waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan midho wanaagsan oo ah kuwaynu in badan ku naaloonaynay. waxaan mar kale aad iyo aad ugu faraxsanahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hagayaasha iyo xeerar kaleba si gaara siyaasadda arrimaha dibadda waan isleenahay waxay wax weyn ka qaban doontaa danaha qaranka iyo kuwa security-ga iyo maxaan ku rahdaay arrimaha barwaaqada dhaqaalaha oo isleeyahay idinku halkaas ka soo gali doontaan oo aan isleeyahay siyaasaddaas haday noo hirgasho oo maanta in badan wadeen saa sheegteen maantana dib u eegisteedii ay wadaan soo raacin doontaan. wax weyn baynu qabsanay oo aan wax yar ahayn oo laynagu amaano in badan waxa weeye nabadii oo ku dhisantay wax la yiraahdo dib u heshiisiin. nabadan dib u heshiisiin ku dhisnayn adduunka saddexaad kama socoto. nabadan ku dhisnayn dhaqankii geedka hoostiisa adduunka saddexaad kama socoto. waxa kale oo dhan waa lagu kabaa
فرونتكا وينو guulo waaweyn baynu ka soo hayno oo taa maanta aynu ku naaloonaynaa. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa si rasmi ah u furay kulankan. guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo waa shaqo guud iyo mas'uuliyad wadareed waayo waxa ugu weyn qaran ahaan aynu halganka ugu jirno oo dadkii iga horeeyay halkan ka hadlay ay sheegeen baa sideen u noqon lahayn wadan kamid ah wadamada caalamka ee fadhiya qaramada midoobay waynuna ahayn oo waynu de wadan waynu ahayn laakiin waa laga warramay taariikhdeeda iyo arrinkeeda marka wixii si dhib yar kaaga yaraa si culays leh bay ku soo noqonayaan istiragalka aynu ku jirnaa waa sidii aynu khaladka aynu galay 60kii doctor uu ka warramayay safiirku inaynu khaladkii u saxi lahayn marka dhib kasta iyo culays kasta yeelato khaladkii aynu galay dhibkiisii baynu maraynaa iyo wixii sida dhibka yar gacanteena kaga baxay ahaa gobonnimadii iyo dawladnimadii aynu lahayn kelmadeedu waxay ku kooban tahay mahadnaq iyo inaan inoogu dhawaaqo shirkaasi inuu inoo furan yahay oo aynu maanta iyo bariba u fadhiyi doono afarta document ee muhiimadda gaarka ah u leh wasaaradda qorshe hawleedkeedii sanadkan dhammaadayna ka mid ahaa inaynu ku talagalno inaad wixii waxtar iyo kaabis iyo dhammaystirba inaad nagala qayb qaadataan